الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي سديد يا سديد هناد يا كتاب كأني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. غض البصر. هل كان شيخ كل شيء يا حكمة عوان لو قد جاي إنها لا بالدوضة. غض البصر عن المحارم إنها أولا لا بالشيء حرام تاه يوجب ثلاث فوائد سدح فائده كان سدح فائده أيو كان حلاوة الإيمان. طيب مد ugu horeysa waa iimaanka macaankiisa iyo ladadiisa, iimaanka oo lagu macaansado ilan iimaanku xalaawu leh sida xadiidkiiba uu sheegay rasuulka sal alla alay wasalam, iyo nuurul qalbi, qalbiga oo nuur qalbigaaga ka ifaaya, iyo sixatul faraasa, faraasada waxaa weye garashadaada oo iyaduna mid wanaagsan oo fayow ah, iyo quwatul qalbi iyo thabaatkiisa qalbigaaga oo xoog leh oo sugan xaqa ku sugan. macluumada sheekhu Ighathatul Lahfan ayuu ku sheegay kitaabkiisii. Tayib, fawaa'ida indhaha oo la laabaa intaa keliya ma aha, waxaa ka mid oo kale inay tahay taaca oo xagga taacatullaahi tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la ateecayo oo qofku uu maqlayo rabbi uu ateecayo. ربي وحولي يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نبي الله محمد وكله دتك مؤمنين تورجع إن لها هلابان حنا حفظيان حبن كوضا ترنكا دمركينا وحور إيبي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. iyaguna indhaha laabaan xubinkooda tarankana ha ilaaliyaan. waa aayadda 30 iyo aayadda 11 fi suurati nuur buu rabbi subxaanahu wa tacaala u hadlay. marka waa rabbi oo la ateecayo oo la yeelayo arrintan samaynteedu. midda kale waa taacatu rasuulillaahi, rasuulka oo isna la ateeco oo maaragtay lagu raaco itibaac lala yimaado. rasuulku markuu ka hadlayay nadrada iyo eegmada wuxuu yidhi ha raacinin eegmada kale ha ka dabageynin. midda hore ay indhuhu dadka isku dhacaan, qofka labada ruux hadday marka hore indhaha isku dhuftaan wax dhibla ma laha, laakiin midda dambe oo ka dabageynta ayaa dhibaato leh buu yiri sala allahu calayhi waalihi wasalam. haddaba ghadul basar, indhaha laabidoodu waxay keentaa baa layidhaha yuurisul xikma, xikmad bay qofka dhexal siisaa. indhaha oo xumaanta laga laabay xikmad ayay ku dhexal siin, nuurna qalbigaaga ayay ku beeri, basiirada oo aragtida qalbigana way kuu fayoobaan. qofkii ka tagaa la yidhaahdaa annadar ilaa maa xaramahu llah, ilaahay wuxuu xarimay inuu fiiriyo, nuurkii indhihiisana arrintaa ka daaya, cawadahu allahu tacaala nuuran fi lqalbi, ilaahay baa bedel qalbi ka wanaagsan buu qalbigiisa la gelinayaa, kaasoo uu ku arkayo xaqa baatilkana kaga leexanayo. waljazaa min jinsi alcamal, marka waana midda sirta ku duugan meeshaasina sidaasay noqonaysaa. azaahiru lixsaan, halkaana waxaa looga hadlayaa macluuma ama xikmad iyadana ixsaanka ku saabsan, samafalka. alixsaan, samafalku yufrixu lqalba, qalbiga farxad buu geliyaa, wayashraxu sadra, laabtana wuu inshiraax sadri, laabtiina wuxuu ka dhigaa mid iyadana dareemaysa farxad iyo wanaag. nicmadana wuu soo jiidaa, niqmada oo balaayada iyo xumaantana wuu dafciyaayo wuu reebaa ixsaanku. waxaa kale ka tegidiisuna waxay keentaa dayq iyo cidhiidhi, nicamtana inay gaadho meeshii loogu talagalay, ama qofka nimco soo gaadhana wuu ka joojinayaa. ayib, ariiqulhijratayn ayuu ku sheegay ibnulqayim hadalka. xasanulbasri baa wuxuu aqriyaa layidhahdaa aayadda qur-aanka fi suurati naxli, uu ilaahay leeyahy ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun. khutabada dadka khudbaynaya inta ugu badan ay aqriyaan markay aayaddaas ay dhammeeyaan ee khudbada 6 arrimood baa lagu sheegay. markaasaa ibnuqayim wuxuu yidhi allah wuxuu ku sheegay ana allaha jamaca lakum, ilaahay wuxuu idiin jamciyo idin ururiyey alkhayra kullahu,
washara kullahu, khayr oo dhan iyo shar oo dhanba fii aayatin waaxida ayuu ku sheegay. waana aayaddan in allaha ya'muru bilcadli waalixsaani waitaa'i dilqurba. waa 3 arrimood oo la rabo in lala yimaado. wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi. 3 kalena waa laydinka reebayaa. ibnu qayim wuxuu yihi miftaaxu xusuuli raxma, raxmadda inay la helo furaheedu waaba ixsaan. ixsaanku marka waa maxay? midka laga wadaa waa alixsaanu fi cibaadati alkhaaliq, allah subxaanahu watacaala oo wixii uu kuu diray la sameeyo. ixsaanku an tacbud allah kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraaka, iyo asacyu fi nafci cabiidi, addoomihiisana in la anfaco oo dadkana wax loo taro. waana min manaasil, wuxuu yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin markuu ka hadlayay mansilatu lixsaan baa ka mid a. waana lubul iimaan, iimaanka dhuuxiisa iyo ruuxdiisa iyo dhammaystirankiisa. mansiladaas oo ixsaanka abaana jamiicu lmanaasil bay isugu wada imaanayaan oo hoosteeda ayay soo wada gelayaan. haddaba ixsaanku waa cibaadadii alla kuu diray oo run laga sheego, iyo khalqigii iyo bini aadamkii makhluuqii oo iyagana wax loo taro. ilaahay subxaanahu watacaala ina xifdiyo. wajazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum.